weydiiniya male su'aal su'aal inaad tahay waaya arag 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك استواد نقل صحتنا وحد نقد داون إنسان شاشة التلفزيون كسمنا يوس أو ذيك جاي من يحرنتي سكوبات المجال هرجيسة واحد كسر دواتان برنامج كنا دنك هذا وأنا كورة سنة إنه ويجنا متطبعات كانوا مرتين ويا هاي بروفيسور عبد علي جامع وأقوياء هنكون تخصصي علمي قد قالها وإحنا كنا جات جامعة هرجيسة بروفيسور كسر دو برنامج كدنك هذا اليو سمنا يوس ودو هاي أدنى ستي سمنا يوس هذيك فرصة قناة دمانتي adiga mudan waqtiga qiimaha leh ee aad noo soo hurtay professor waxaan ognahay Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka ay saameeyeen waxyaabaha loo yaqaan sixir bararka iyo qiimaha dollarka ee aan meel fadhiyin bal waxyaabahaas maxaa sal u ah marka hore ay ka bilaabmaan waa su'aal fiican runtii su'aashan ay ku timaadaa runtii wax kala faa'iideysigu furaha cilmigu dawaa su'aasha marka horta sicir bararka inagayna haya uu ka duwan yahay adduunyada kan adduunyada maaha adduunyada laba sicir barar baa jira laakiin kan waa mid saddexaad oo inaga gaar inoo ah ya marka labada adduunyada ka jira mid waxa weeyaan kan marka مثلا shidaalku markuu qaali garoobo kale alaabtu dhan way qaali garoobaysaa way wax walba de shidaal baa lagu isticmaalayaa caani way qaali garoobayaan way gaari baa soo qaadaya bariiska uu qaali garoobaya waxa soo qaadaya shidaal baa lagu soo qaadaya shidaalka laftiisu qaali garoobaya way shidaal baa lagu soo qaadaya maxaan ku yiraahdaa khudraddu way qaali garoobaysaa shidaal baa lagu soo qaadaya arigu qaali hilibku qaali garoobaya shidaal baa lagu soo qaadaya Soomaa marka shidaalku kale haduu qaali garoobo wax walba way kacayaan Soomaa marka kaasoo kale waxa la yiraahdaa cost push inflation ama waxa la yiraahdaa sicir bararka ka dhasha marka kharashku kordho sicir bararka labaadna waxa la yiraahdaa demand pull inflation oo waxa weeye sicir bararka yimaada isaguna marka dalab saa'id yimaado oo dalab kordho mesela oo kale mesela dad baa inagu soo xagaa baxay ya dad baa inagu soo xagaa baxay xagaagii inoo yimid dadka Yurub ka yimaada iyo dadka Djibouti ka yimaada kuleylka iyo wax oo dhan halkan yimid ya marka hadee Soomaaliya waxay doonayaan Soomaaliya guriyo ay kareystaan guriyo qaali garoobaya waxay doonayaan hoteeladii baa qaali garoobaya waxay doonayaan cunto roodhi bay doonayaan roodhi baa qaali garoobaysa caanihii baa qaali garoobaya Soomaa kana waxa la yiraahdaa sicir bararka ka yimaada xagga dalabka waqtigu ku xidhay waqtiyada qaar buu dhacaa haye hadana dad marka si gaar ama dadku dakhligooda kordho dadka hadii dakhligooda kordhana oo lacagtii hore ka badan ay helaana iyada lafteeduna marka way dalabkii baa badanaya marka inaga labada midna maaha sicir bararkeenu waxa la yiraahdaa inaga sicir bararkeenan waxaan u bixinay anagu xagga jaamacadda markaan dhiganayno waxaan u bixinay marka jaamacadda dhigayno waxaan u bixinay sicir bararka ka yimaada xagga sarifka ya ayuu ka yimaada keenu marka adduunyada kale sicir barar xagga sarifka ka yimaada ma jiro sababtu waa maxay way kala adduunyada kale way kala saaran yihiin ya sarifka iyo maxaan ku dhahaa lacagta waddanka loo isticmaalaa in lagu iibsado alaabta iyo adeega lacagta ajaanibka waxa loo isticmaalaa marka dibadda wax laga soo iibsanayo kaliya inaga basaas ahaan jirtay dhalinyaradu damay soo gaadhinaya waqtigii dawladii hore Soomaalida saas ahaan jirtay oo dollar wax la yiraahdo lagu maarki jiray suuqa ya dollar waxa dooni jiray ninka baayac mushtariga ah ee doonaya dawladda wax ka keeno laakiin intii burburka kadib maxaa dhacay waxa dhacay in lacagtii faalsoodo lacagtii hore dawladdii hore siyaad bare waati lacagtu faalsoodo dagaal buu ku galay lacagtii moogti markuu dagaal lacagtii ku galay wuu iska soo daabacday deedna way faalsoodo markii dambena dawladdii lacagtaba lahayd waa tii dhacday dabadna dadka waxay isticmaaleen lacagta dollarka lacagta birta lacagta faranka Djibouti lacagta imaaraadka dirhamka wuxuu dhan dalbiga lacaga tii de horena way iska wareegaysaa tii Soomaalida horena way iska wareegaysaa iyadoo xaaladdu sidaa tahay ayaynu lacag soo daabacnay inagu 94
markaa dabeedna lacagtii markaynu soo daabacnay lacag cusub bay ahayd lacagtu markay cusub tahay dee waa lacag dee qiimaheedii wadata nasiib darra laakiin innaguna lacagtii markiiba waynu qiimo ridnay kilomitarkaynu jarnay markiiba waxaa dee waddankii ma garanaysaa wuxuu noqday dee si qayri mas-uulnimaba lacagtii loo isticmaalay lacagtii Soomaaliland la soo daabacay waxaan ku sheegi karaa wixii waddankan ka dhacay inuu ahaa qayri mas-uulnimo macnaha dad lacag maamuli kara inaan ahayn sax waayo waa dadkeena lacagtii 94 kaynu soo daabacay qiimo rid ku sameynay muddo dhowr sano gudaheeda aynu lacagta qiimaheedii u bahalkii gaadhay dee sarifka halka dollar wuxuu ahaa 50 shilin halka dollar markii lacagta Soomaaliland la soo daabacay halka dollar wuxuu ahaa 50 shilin lacagta Soomaaliland waa 50 shilin imika ina aragba 100 shilin xataa ma kama aragnade ma shantii 100 baa qiiro ku jirtaba 50 shilin buu ahaa okay way qofka mushaharkiisu ku filaa markuu qaato askariga mushaharkiisu ku filaa bilayska mushaharkiisu wala gaadka marka lacagta qiimo lahayd dalka timi dee markuu askarigu qaato 500 kun dee lacag badan baa sax ya marka waxa weeyaan dee waxaan ku dhahdaa taasi waxa dhacday markaa inaynu lacagtii aduu kilomitarka jarray markiiba oo dhowr sano gudahood aynu gaarsiinay halkii dollar gaadhay 6 kun 7 kun 8 kun dee ilaa imika uu marayo 10 kun halkii dollar baa 10 kun maraya marka halkaa waxaad ka garanaysaa qof kasta oo caqli leh iska daa qof dhaqaaliyahana wuxuu garanayaa inay lacagtaa heleen dad qayr mas-uula ya oo waxaa lagu marmarsoodaa runtii dagaalaa la galay dagaallo sokeeyaa dhacay laakiin xataa markaan xisaabiyo kharashka dagaaladaa sokeeye iyo wax kasta oo aan xisaabiyo inuu intaa gaadha maahayn lacagtii Soomaaliya ee berigii hore aynu dhaxal siyaad barre ka tegey markay xataa bilaa dawladda noqotay maxaan ku dhahaa dawladdeedu dhacday isagu dagaal kasta uu ku galay maxaan ku dhahaa markii dambe nidaamkii lumay qiimo dhaca ku dhacay teena kuma dhicin ya marka waxa weeye taasi waxay keentay marka in lacagtii ay faalsoodo oo inagu faalsoodo imika maqashii oo dhan way dhimatay lacagtii maqasheedii meeda waxay lahayd lacagtu hada qadaadiicdii ama dhururidii shilimaadkii iyo hataa shilin bay lahayd sabogi shilin bay lahayd hataa 100 shilin ma jiro 5 shilin bay lahayd 10 shilin bay lahayd 20 shilin bay lahayd 100 shilin bay lahayd ya 50 shilin bay lahayd marka dee lacagta maqasheedii oo dhan way rawaxday marka taas waxa ku tusinaysaa waa failure waa fashil ku dhacay lacagtii maxaan ku dhahaa Soomaaliland oo dee waad garanaysaa marka wax lacag oo inoo dhaqani inay jirin oo imika haddii aad u timaado nin xoolo haysta inaga xoolo dhaqatirnahay ood aragto ninkii xoolo haysto oo ama reerkii xoolo haysto xoolihii wada yihiin xoolo 2 jir 3 jirka weyn oo maqalibaanay jirin dee waxaad sii sheegi kartaa inaan xoolo ninka u noolayn waxba ma soo kacayaan dee soma waa saasoo kale weeyaan waxba kagama duwanaa waxaa ku tusinaysaa taasi inaynu maxaan ku dhahdaa soo xaaluftay lacagtii Soomaaliland soo xaaluftay oo sii xaalufayso inaga marka dambe 1,000 shilin soo daabacnay 5,000 shilin soo daabacnay dabadna iminka waxay noqotay inaan loo dhawaan karin runtiina labada jeer ee qiimo dhaca xoog ah ku dhacay lacagteena waxa weeye xilligii dawladdii iminka xukuumaddii Silaayo iyo xilligii xukuumadda Cigaal ya xilligii xukuumadda Cigaal iyada waxa lagu maxaan ku rahaa lagu marmarsoodaa runtii ama sabab looga dhigaaba ilaa xadda waxba ka jira dee dagaallo sokeeyaa ku furmay oo dadna dagaal baa lagu galay lacagtii oo dabeedna dee lacagtii qiimo dhac baa ku dhacay dagaalka laftiisa marka laga yimaado marka lacag baa lagu dilayo lacagtii dee Soomaaliya la isticmaalayay ayaa meesha laga saaray oo tanaa laga dhigay lacagtii dee rasmiga ah dalku laakiin taas qiimo rid ma sameynayso taas qiimo rid ma sameynayso qiimo rid waxa sameynaya marka lacagta inta ka soo daabacdo adna iska kharash karayso saan xad lahayn bakiis marka taas loo sibir saaraa laakiin marxaladii labaad ee qiimo dhaca marxaladda ugu fiicnayd ee qiimaha shilinka Soomaaliland runta la sheegaa taariikhda runta laga sheego sax waa marxaladii madaxweyne Riyaale marxaladaas waa marxaladda sarifku fadhiyay baan oran karaa ee inta uu dhaqaaqay aad u kooban tahay ya laakiin labada marxaladood ee lacagteenu kilomitarku go'ay ee xaaluftay waxa weeyaan waa xilligii madaxweyne Cigaal iyo xilligii madaxweyne Silaayo halka kreditka ugu weyn sumcadda ugu weyn buu ku leeyahay Riyaale halka sumcad weyn buu ku leeyahay runta la sheegaa
taariikhdana dee waxa weeyaan beentu ma soconayso marka waxa weeyaan sababtana miyaad garanaysaa sababta waxa weeyaan maadaama xilligii madaxweyne cigaal lacagtu aad u qiimo dhacday oo kiiloomitirka goosatay madaxweyne riyaale madaxweyne ku-xigeen buu ahaa wuu fahansanaa dadna xoogaa wixii dhacay sababta keentay inuu garanayay oo sababta keentay inay tahay lacag la iska soo daabacdo dadna la kharash gareeyo dabeedna markan uu meesha yimi isagu wuxuu yimi madaxweyne riyaale meesha yimi iyadoo faraha laga gubtay lacagta Soomaaliland qiimo dhaceeda dadna uu dhawaaba madaxweyne Siilaan yaa yimi haddana isaguna waxa weeye wuu wareejiyey isaguna wuu wareejiyey qiimo dhac xooga baa dhacay intii madaxweyne Siilaan joogay sax waan la wada soconaa dee waa waxaynu dee wada fact weeyaan marka imika hadda dawladdan iyadu dawladdan imika madaxweyne Muuse hogaaminayo waa marxaladda in riyaalo kale uma dhawaan karo inuu lacag soo daabaco uma dhawaan karo faraha laga gubtay uuna og yahay faraha laga gubtay marka isagu waa marxaladda in riyaalo kale ku jira imika uma dhawaan karo marka la eego waqtiyada isbedbedelaysa lacagtu heerka noloshuna hadba sibay ula jaan qaadaysa waxaa la yidhahdaa mushkiladda ugu badan ee nolosha kor u kaceeda ama sicir bararka ku yimi nolosha ee saameeyey muceeshadii danyartii ee sababay in dee guryo badan lagu gaajoodo waxay dhacday intii 2010 ka dambeysay dhaqaalayahan markaad aqoontaada ku kabayso miisa kula muuqata runtii dawladdii Siilaan intay joogtay dhaqaaluhu korin buu sameeyey uu koray laakiin sicir barar baa la socday marka waxa socday dhaqaaluhu korayay oo marka loo eego marxaladii riyaale marxaladii cigaal marka iska dhaafto ayadu marxalad dhismaa iska ahayd marxaladii riyaale iyo marxaladii Siilaan marka soo eegto marxaladii Siilaan dhaqaaluhu korin uu sameeyey koray oo garanaysaa lacag badan ay wareegaysay oo dadka income-koodu kor u kacay dadka baayaca mushtariga laakiin sicir barar ayaa wehelinayay la socday hadii jeerna marka dhaqaaluhu korayo sicir barar baa weheliya oo la socda hadii jeer marka adigu taad sheegaysaa qoyska sicir bararkaas wuxuu haraatiyay ama uu noloshii hoos u dhigay noloshii dadka masaakiinta marka waxaad oran kartaa xagga dhaqaaluhu korayay laakiin dhaqaaluhu wuxuu u korayay dadka ladan dhaqaalihii korayay muu gaadhayn dadka bulshadii qayb uu dhib ku ahaa dadka hoose muu gaadhaynin iyaga sicir barar baa looga tagay dabadna noloshoodii way sii baabaaday markaas silic bay gashay noloshoodu waa runta taas waxba ka jira laakiin waa sida labada sawir baayka imika waxaynu ognahay in adigu aan niraahna 3 sano ugu dambeeyay ama 2 sano ugu dambeeyay ayuu qiimihii ugu sareeyay gaadhay sarifka dollarka qiimihii ugu hooseeyayna ay gaadhay lacagta shilinka Soomaaliland oo halka dollar 12,000 iyo 10,500 iyo wax heerkaas uu gaadhay oo lacagta Soomaaliland imika dhawaan way 9,000 iyo 700 maray halka dollar maanta iyo 9,800 iyo 10,200 iyo 150 ba uu hoos ka xigaa banku wuxuu sheegay in uu dadaal badan sameeyay oo dadaalka badan ay uu sameeyay ay taas sababtay ku muuqda adigu dadaalka banku sameeyay ama ay mas'uuliyiinta imika sheegeen in ay sameeyeen dadaal badan oo ay ku dhimeen xilligan 10,000 ee uu ka sareeyay ay hoos uga soo dhigeen runtii arrinka waan arkay warbixin ay soo saareen banku waxbaanan ka qoray bartayda aan ku leeyahay baraha bulshada waxbaan ka qoray waxaan sheegay inaan waxba ka jirin arrinka ay sheegteen oo xilligan sida caadiga sanad kasta xilligan oo kale ay tahay moosikii uu jabi jiray dollarka sababta jabisana sanad walba waxa weeyaan ariga dhoofaya oo dollar badan inaga soo galo iyo dadkeena xagaaga qurba joogga xagaaga yimaado iyaguna dollar sita arigiina furmay iyo sanadka waa isku beegmay iyo dadka qurba joogga sanad waa isku beegmay waliba marka taasa dollar badan inay soo gelisay taasaa jabisay dollarka wax shaqo ay ku leeyihiin ma jirto mana sheegan karaan runtii inay yiraahdaan baa fiican dollarku uu jabay sababtan ay sheegaan oo ilaahay sababtan waa taa alxamdulillah say yiraahdaan baa laakiin annaga sameeyay dadaalkiina wali waa loo fadhiyaa dadaalkoodii waa loo fadhiyaa haday sameeyaan dadaal waa loo fadhiyaa waxba ha degdegina guul ina sheegataan ha ku degdegina ilaahay ku guuleeyay laakiin ha degdegina guusha ha sheeganina aan jirin oo magaranaysa guusha ilaahay keenay ma aha in la sheegto runtii laakiin runtii waa arrin wanaagsan oo inoo wada wanaagsan oo macallimiinta wanaagsan laakiin marka dhinac laga eego wax iska bedelan noloshii kale ee asxaartii kale qiimahoodii markuu dollarku 12 kuna ahaa koobka shaaha wixii la siinayay baa la siinayaa
baastada bariiskan daqiiqda noloshii oo dhan ilaa xabada tamaandhada wixii la siinay ayaa la siinaya waxba iskama bedelin barteedii baa dhigtay taasi markaa maxay muxuu macnaa u samaynaya dadka hoos u dhacaas waxa weeyaan arrintan la yaabay waxa weeye baanku warbixintu soo saaray wuxuu yidhi waxaa jabay sarifkii therefore bay yidhahdeen sidaa daraaddeed ascaartii baa jabtay bay yidhahdeen oo u jabtay bay weliba yidhahdeen dadka masaakiinta ah ee dakhligoodu xadidan yahay sida dadka maaragtay shaqaalaha dawladda sida askarta sida biliiska arrintaasi waa been aanay waxba ka jirin waa adigan sheegaya shay walba intiisi baa la siinaya wax ascaartii iska bedelay haba yaraatee ma jirto maxaan ku dhahdaa sababtaan iskaga bedelayna waxa weeyaan dee horta iminka unbaabu sarifku ciiray sarifku markuu ciiro markiiba ma raaco ascaartu ma raacdo laba sababood baan u raacay mid waxa weeyaan horta dee baayac mushtarigu waxay iska hubsanayaan dee inuu waxan yahay wax joogta iyo inuu wax soo noqonaya yahay meel halkaa u fadhiistay in dee inuu ku soo noqdo ya ta labaadna waxa weeyaan dee baayac mushtarigu ma hubaan dee inuu waxani fadhiisanayo oo waxani uu noqonayo sababta labaadna waxa weeyaan marka doolarku kaco iyo marka doolarku dhaco way kala duwan tahay marka doolarku kaco markiiba baayac mushtarigu way raacayaan ascaarta hadduu maanta kaco isla maantay raacinayaan ascaarta laakiin hadduu dhaco doolarku ascaarta ma raacayaan sababtu waxa weeyaan qofka baayac mushtarigu waa faa'iido doon mar walba isagoo xagga faa'iidadu raacaya dantiisu mu ka fikiraya marka doolarku kaco markiiba uu raacinaya way khasaaro diidaya laakiin markuu dhaco markiiba ma raacinayo ilaa uu hubsado inuu fadhiisanayo oo halkaa fadhiisanayo ya taana dee cid garanti garan kartaa ma jirto baanku miyuu garanti garanaya baanku hadduu ballan qaadayo inuu halkaa fadhiyayo baayac mushtarigu hoos baa u dhigaya ganacsiga damaanad raba damaanad baa dee jiri laakiin meenay yar manaxaanimo ahayn in marka kacana lala kaco markuu hoos u dhacana manaxaanimo waxa weeyaan waa arrin xagga baayac mushtariga caadiska ah qofka baayac mushtariga waxa weeyaan ascaartu dabeecad bay leedahay ascaarta dabeecaddu leedahay waxa weeyaan ascaartu xagga kicidda iyo dhicidda keebaa u fudud waxa u fudud kicidda ascaarta kicidda u fudud bugaagtay ku qoranta ascaartu inay kacdo ayaa u fudud laakiin inay dhacdo ascaartu xagga dhicidda way madax adag tahay ascaartu laakiin xagga kicidda way madax fudud tahay way dheganuusha xaggan laakiin dhicidda uma dheganuula xagga dhicidda ascaartu waxay dhacaysaa uun haddii la bixiyo damaanad inay fadhiyayso halkaa uu fadhiisanayo aanu dib u noqonaynin marka maxaa u diiday wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo baanka dhexe iyo qaybta ganacsiga ilaa wasaaradda ganacsiga qayb ka tahay in sustainable laga dhigo ama la fadhiisiyo sarifka doolarka qiimaha maciishadana dee meel lagu ogaado oo si noloshii bulshadu u wada socoto waa su'aal wanaagsan waa ta aan ku qaylinayay ilaa weligeyba maamuladii hore dhan waan soo naqaanay baanka waxaan had iyo jeer ku odhan jiray maamuladii kala dambeeyay oo dhan anigu jaamacaddan ka dhigayay maadada sicir bararka weliba iyo sicir bararka iyo sarif bararka si gaara weliba u dhigaa ya oo arrintaas Soomaaliland u gaarka ah ayaan dhigaa dadmiis waxa weeye arrintaa cid jaamacad kana laguma dirso anuun baa bilaabay oo dhigay oo buugeedana qoray marka PhD-dana anaa ku bixinaya macnaheedu hataa imka qofka doonaya PhD-na ku diyaariya anaa PhD-da siinaya ya marka waxa weeyaan waayo dee waddankeennun bay ka jirtaa waa aniga kuu sheegay inaan waddan kale aanay ka jirin oo sicir bararkaas walkanu ka jiro marka waxa weeyaan waxaan ku odhan jiray had iyo jeer maamuladii kala dambeeyey markay yidhahdeen waanu jebinaynaa sarifka waar waxba ha jebinina markuu 5 kun marayay waar waxba ha jebinina 5 kun ma ku fadhiisay ma ku odhan jiray meelaha loogu soo gaagay 6 kun buu haddana noqday waanu jebinaynaa waar waxba ha jebinina 6daa ma ku fadhiisay 7 noqday waanu jebinaynaa waar waxba ha jebinina 7daa ma ku fadhiisay kuwa laftooda waxaan leeyahay imka waar 10kaas ku fadhiisay aynu wareerinine hadda bal maxaa tiri ma wad fadhiisin kari weydeen ma ridis baad ma inaad ridaad maxaan ku radaa hoos u rido ayaad awood u leedahay haddaad awood u weydeen inaad fadhiisiso wad halkiisa ku fadhiisiso halka kolba maraya ku fadhiisin kari weydeen sidee baad awood ugu yeelan kartaa inaad hoos u rido marka aan lahaa haysa saarayna waxaan awoodiinahayn awood ma lehidin inaad ridaan ma ridi kartaan halkiisa soo fadhiisay runtiina waxa loo baahay waxa weeye in la fadhiisiyo iminka soo 10 kun mari maayo waliba anigu waxaan lahaa 10 kun lagu fadhiisiyo waayo xagga xisaabtana way fiicanta oo 10 kun xisaabiyaasha ay la garanayaan 10 kun lambarka fadhiya maartay xisaabta fudud oo marka la sheego waa $2
ولا تكون بعد بحنيسة حسابياشنا ويفوز ناس حسابتي أو fraction كي أي ماشي كبحية يا برجعنا وحنا لها for accounting reasons حتى يا حساب هذا عود شركة حسابته شركة حسابته يمهرة حسابته عود يضطر كم عميش حسابته حسابه فضاته طبعا كحلو فريسين أنا أقول لها يا وقتي سجالك يكون وقتي سديد يكون وقتي تضبط يكون وقتي لحظة يكون ثلاثة دول قاعدين معي ده رنتي وضنا كان حبل اسمه يديم وقتي مرة قف أنا وحبك وجين وضنك أيام مرة لك هنا يا وقتي حبل لك هنا ده أنا قبل هنا هنلودي بها أنا الله ما قاعد هنا ده وحنا ويديان وحنا ويديان هذول هم معناه مش هنلودي بها sababtoo muhiim marka ma la awoodi waayo in lala jaan qaado la raaciyo noloshii kale ee ganacsigii kale oo hay'adihii kale aan bank ku lahayn maaliyadda iyo ganacsiga iyo wixii intay wada jir u shaqeeyaan ma wada dajin kar meel ma wada fadhiisan kari waayeen qiimaha wax lagu iibinayo iyo qiimaha sarifka dee soo kuwan kolba isku qaadeen la waan jibinayna anna ku lahaa markii 5 kun marayay baan la jibinine halkiisaas ku fadhiisay inta marka loo eego banka meelaha sicir bararka waxa la sameeyo Soomaaliland dalal dagaal ka jiraan inta badan ama kacdoona ka jiraan siyaasadda waxa kamida koonfurta Suudaan waxa kamida Liibiya waxa kamida Congo oo inuu ognahay inaan dagaal kuba ka degin waxa kamida Ethiopia oo kacdoon siyaasadeed ka jira heerka sicir bararku ka marayo Soomaaliland la meel dhigo oo banku la meel dhigo sidee kula muuqata dee runtii waxa weeyaan inaga sicir bararkeenu waa ka duwaya kaasoo wax kastana dabadeen ka keensanaa maal cuntada cunayna qotal daruuriga aynu dabada ka keensanaa soo moogid marka in dawladda kale waxay dabada uga baahan yihiin ba ka keensadaan laakiin wixii ay la soo bixi karayaan la soo baxantay imika Ethiopia inta inoo jirta cuntada qotal daruuriga dadku ay la soo baxaan waxay cunaan waxay beertaan ay cunaan marka inagoo kale ma isbarbar bardhigi karna wadamada takala sicir bararkeenu ma aha sicir barar ka yimi ma aha inaga gudaheena ka yimi ma aha waa sicir barar inooga yimi sarifka inooga yimi oo sarifka ka soo talaabay سعر برا صرف كسر طلابينا إلا بربر يقول سعر برا كله وابا خلط بقى ولا بس سعر برا بقى خلط شهادة بدي يقول حسابنا يعني سعر برا كله كهلا يعني كسمة إنك مركز سعر برا كله حسابيو إذا سعر برا كود اللي هاصل لا بربر يقول سعر برا كحلو قياس واحد لها كونسيمر برايس إندكس يا وإنك لفت إنك هو شنو نقول عصب وإنك إنك وسعره نقارس مياه وركا ده وحويان waxa ka soo baxaa hadaynu ka barbar dhigno inuu adduunka barbar dhigno de wax weeye waa khalad waxa khalad u tahay wax weeyaan sicir bararkeenu ma waxa ka sicir bararkeenu waa bisarfka ka soo talaabay weeyaan iyagu sicir barar ka sheekeynaya ma aha mid sarfka ka soo talaabay marka isbarbardhigaas uu khaldan yahay gebigiisu uu khaldan yahay haddii professor Cabdi Cali Makal laga dhigo gudoomiyaha banka dhexe Soomaaliland ma baagaasimaha guud ama wasiirka maaliyadda ama wasiirka ganacsiga waxa soo dhibaato inflation ah ama sicir barar ah ama lacag barar ah ama qiimo bararkan mucaashada ah dhibaatooyinka isbarkan xalka adag u baahan muxuu ka qaban lahaa horta deewad bahasite wax weey waaniga imka kula haade horta wax weeyaan mushkiladii wax dhaxlaysa Soomaa marka waxaad u baahan tahay ma aha inaad wixii hore already lumay way lumeede halka la joogo madax ka qabanaysa imka ma kula war halka lagu fadhiisi ma kula horta anigu tobanka ku ma ku fadhiisan lahaa wixii hore way ka tageen imka 7,000 iyo 8,000 aan ku celinay iyo 5,000 aan ku celinay lix waxaan kuma fikreeba way taas waa khalkhalba hadii imka lagu celiyo sarifka 7,000 ama 5,000 lagu celiyo ma waxay la tahay dadkan weydiiyay dadweynaha weydiiyay ma waxay la tahay in ay fiican tahay noloshii kala raacin bad ka wada macna waa khalkhalba dhaqaalo waa khalkhalba dhaqaaliga khalkhalinaysa ascaartuna de wax weeyaan way khalkhalaysaa wuxuu dhan ba maxaan ku dhahay qiimaha oo dhan baa wada khalkhalaya marka wax weeyaan kama duwanaa isagoo 10,000 maaha 10,000 hadii imku 15,000 noqdo soo khalkhal maaha oo boodada soo khalkhal maaha hadii 5,000 lagu celiyana waa khalkhal fluctuation baa la yiraahdaa waxa weeye waa baaxadig oo dhan waa khalad waxa loo baahan yahay in la fadhiisiyo 100 jeer baan u sheegay laakiin damiyay maqlayaan waxba maqli maayaan way farxidhay kuwii horaan u sheegay 100 jeer war halka ku fadhiisiya bay waan jibinayna bay kordhay walaal cusub talooyin ma u geysatay wali wadooyinka cusub wali talooyin ma geysan runtii way iska cusub yihiin laakiin de halkay mariyeen baaban diiday marka hore ma ogtahay marka su'aashaadii haddana soo noqdo de anigu san wax u qaban lahaa wax weeyaan ama hadii la ila tashan lahaa de khasab ma in laga dhigo gudoomiyada hadii lagu tashan lahaa wax weeyaan in horta mar wax walba halkaas aan ku qaban lahaa halka marayaan soo maarag ay wax walba ku qaban lahaa oo ku fadhiisin lahaa wax walba
ya marka waxa weeyaan dee waxaana aniga ku sheegay dee in aanu magaranaysaa muddo ka soo jaamacadana ka soo dhigaynay sicir bararka noocu yahayna aanu hayn nooc ay moodayaan aanu hayn oo nooc yahay xagga sarifka ka yimi marka waxa weeyaan oo dee waddankan lacagtiisii iyo lacagtii kale ay suuqooda marayaan waayo dee adduunyada ma jira meel dee intaad makhaayad gasho dee adduunyada iminka ingiriis iyo maraykan yaa isaga dhow intaad ingiriiska dollar soo saarta dee dukaanka waxba kama iibsan kartid wuu kula yaabaya dee wuxuu garanaya maxaad ahayd waxaan aad ii dhiibaysaa ها ما جرت دي ديده wax aynkaasi ma jiraan marka inaga lafteena saas ah dhalinyaradu ma garanayaan saas ah jirtay inta ma dukaan inta gasho ma soo saareen lacag shisheeye oo dollar iyo wax ma ka iibsan jirin bala dhalinyaradu ma garanayaan oo ma soo gaarin inta badan waxa nool imika wax soo gaanaga dirqi ku soo gaaray barmanaya laakiin wixii kale ma garanayaan marka runtii anigu waxaan sameyn lahaa horta lacagta Somaliland أنا waxaan qabaa imika waxa yar fashal boogtahay marka horta anigu waxaan sameyn lahaa hadaan ku sheegay taladeeda waxa weey lacagtan gebigeeda waan baabiin lahaa oo gubi lahaa lacag Soomaaliya oo gubi lahaa way fashilanta maxaa looga gudbay marka ma lacag cusub soo sameyn lahaa imika way gaadhay imika taasaan qorayaa waa dhakhtar ahaan waniga waxaan ku sheegay defaani maaye waxaan aan dhigi jiray moogtay marka kule PhD baan bixinaya mid baa igu yiri inta PhD ana ku bixinaya maadadan ayuu yiri adigu PhD ku baad soo qaadanaysaa bixinaysaa marka saan ku yiri waxaan u bixinayaa de kii ugu horeeyay PhD da bixiyay PhD muusidan baan ku yiri shay kasta baan ku yiri cilmi kasta kii ugu horeeyay PhD da bixiyay isagu PhD muusidan baan ku yiri de kii bilaabay PhD cidba siinta marka waxaan ana bilaabay baan ku yiri marka ana PhD da ku bixinaya laakiin markii dad badan maqlaan oo aniga aan kamid ahay lacagtan gubi lahaa dalqaad bay ugu yartahay lacagtu waa la gubaa asalka marka lacag maxaa looga guurayaa maxaa iyada loo gubayaa lacag gubiddu wax iska caadi ah marka lacagta laga guurayo dambas baa laga dhigaa lacag kala bilaabaysaa moogti oo lacag cusub bilaabaysaa marka tii hore dambas baad ka dhigaysaa ka gubidda saasaan uga jeedaa waa arrin iska farsamaa taasi dhib ma laha taasi oo waxa weeyaan macnaha kudaafada lagu tuuraya weeyaan laakiin lacag cusub baan samayn lahaa lacagta cusub marka la sameeyo lacag macallimka qadaadiicdeedii wadata oo maqasheedii wadata ayaa keeni lahaa waayo lacagtii way ku ciyaareen dadkii hore loo dhiibay gudoomiyaashii hore bangiyada dhexe loo dhiibay way ku ciyaareen ana waxaan la yaabanay cidda gudoomiye ka ahayd meesha markay waxaan oo dhan maqashan oo dhan ilaanaysay ma la yaabanay waxa jira hadal hayn oranaysa wasaaradda maaliyadda iyo banka dhexe waxay soo daabacayaan lacag cusub inkastoo sheegtay in Muuse madaxweynaha imika oo xog badan hayo cabsideedu ay ku jirto waxa la sheegay in lacag cusub la soo daabacayo halka imika 5,000 laga joogo ilaa 10,000 la gaari karo sida kula muuqata taas hadii ba ay timaado haday taasi timaado waxa weeyaan waa qeyr mas'uuliyadii u weynid weeyaan waxa weeyaan baabi iyo kadeedkii iyo siliciina soo maray sicir bararkii naga soo maray waxa weeye intii ina soo mariyay in la eg oo kala hadeen miyaan qaadi karnaa intii hore waxay nooga naxariistay intuu madaxweyne Riyaal inooga naxariistay waxa weeyaan xilligan waxa gacan kulul oo ka horeeyay ayaa ka horeysay madaxweyne Siilaanyo intii uu joogayna gacan kulul baa ku dhacday iyadana lacagta marka Muuse ma raacin karo madaxweyne Muuse ma raacin karo hadduu raaciyo waxa weeyaan waddankan kama soo kabanayo marka taladeedu waxa weeyaan inaan u dhawaan waayo waa la wareejiyay waxa weeyaan xoog baa la wareejiyay waxa weeyaan waaniga kula lacagtii fashil bay ku dhowday in la baabiyo lacag cusub aynu sameeyno anigu waxaan soo jeedin lahaa madaxweyne Muuse inuu lacag cusub soo sameeyo tan iska daayo oo tan baabiyo dambas laga dhigo waxa jirta intii Muuse bixi madaxweynaha hadda xilka haya uu xukuumaddiisa soo dhisay ama xilka qabtay in ay cabashada dhaqaaluhu badan tahay marka loo eego lacagtii bulshada dhex maraysay oo wasaaradda dhaqaalaha hoos u dhaqaaliyo waxaas laga cawdo maxaa sabab u ah runtii inkastoo inaan waxa weey daraasad cilmiya sameyn haddana waxa la gas baa jira moogtay economist gas iyo xataa dadka caadiga ah way gas gareyn karaan wada gas gareynaya qiyaas baa jirta qiyaas ahaan waa runtaa wasaaradda baa dhacday hadii jeer marka laba dawladood isbedelayaan waxa weeye waxa dhacaya hadii jeer wax kala guur baa dhacaya marka waxa weeyaan dadku way la tarisayaan hadii jeer investment ka maalgelinta ay sameyn lahaayeen waxyaabo badan dawladda marka haday markiiba abuuri weydo jawi dhiirigelinaya dadku inay wax kharash gareeyaan
oo iyada lafteeduna wax kharash garay weydo taas waxay ku imanaysaa dawladda lafteeduna wax kharash garayso marka imka hakad baa ku yimid dawladdu inay kharashkeeda ay dawladda hakad ku yimid intii la kala guurkii ma garaysa markii dambe kala guurkii dhamaadayna runtii dawladdu waxa weeye waxay yar baqatay waxaad moodaa baqdin baa gashay xagga kharashka ya oo waxaad moodaa xoogaa maxaan ku dhahdaa kumay dhiiran inay taayirkii sii wareejiso sidii uu wareegayay markii dawladda Soomaaliya ay meesha ka baxday taayirkii waxay ahayd inay taayirka ku dadaalaan hadduu yar hakaday markiiba halkiis ku soo celiyaan marka runtii taasi suura gal weydo taayirka wareegiisa halkiis ku soo celiya ayir buu wareegay taayirka wareegaya marka waxyaabo fara badan ta kale maxaan ku dhahaa saadkan iyo waxaan isaga laftiisa la yiri $100 wax ka badan taa lafteedu waxay yaraysay wareegii ay yaraysay oo dadkina way shaxaadan xataa moogtay marka imka $5 qof haduu hayso darwaan u diiri jirin Soomaa imka wax noqonaysa inaan sarrifo marka waxa waan ka wahsanayaa badii ma sarrifayo moogtay dukaan bas ay wax ma hayad skoonaysa dukaan bas wax ka iibso dawlad doorbaa ka iibsanaysa Soomaa imka Soomaaliland ma doonaysa wax ka iibso waa inaad sarriftaa Soomaa hadda anigii baa sarriflaad waa sarrifayaa marka transaction cost wax la jira haddii wax kala iibsiga wax isdhaafsiga haddii maxaan ku dhahdaa hawshiisa badato oo hawl bato iibku yaraanaya marka halkaan aan waxaan qabaa waxa ka yimid isagana wareegii inuu yaraado wareegii baa yaraaday laakiin waxyaabaan imika warbixinta banka haddaad eegtay ku jira gudoomiyaha banku soo saaray in lacagta kharashaadka ay dawladdu xadiday kharash garan jiray oo ay xoog u xadiday iyo lacagta $100 wixii ka yare lagu sarrifayo lacagta Soomaaliland in ay qayb ka tahay hoos u dhaca 10,000 hoos u mariyay dollarka taas meel ku muuqan adiga aqoon ma taas ma jirto waxa weeyaan taasi si ma jirto laakiin si ma jirto si ma jirto kharashkii dawladdu u yaraaday marka la oran karaa shirkii Soomaaliland marka suuqu ku yaraaday marka taasi qiimo keento la oran karaa laakiin shirkii Soomaaliland kuma iman sida banku sheegay banku mid buu been ka sheegay kuma iman dawladda oo kharashka dhintay ama kharashka xadiday kuma iman waayo dawladda kharashka miisaaniyadeedu waxa weeyaan kama yaratii hore Soomaa marka waxa weeyaan waxay laakiin ku timi waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa kala go ku yimi kharash garayntii buu kala go ku yimi marka ma mid qorshe ku timi waa kala go ku yimi dawladda cabsi ku jirto dawladda cusub oo cabsi ku jirto iyo inay magaranaysaa controlkii oo ku batay oo la oran karo dawladda maxaan ku dhahdaa aad u controlaysa wax ka soo baxaya laakiin kharashkii miisaaniyaddu muu yaraan marka waa mid maaha mid cilmiyeysan maaha ayaan ujeedaa macnaha ujeedada waxa mid cilmiyeysan maaha waa mid ku yimi uun waxa weeyaan uun maxaan ku dhahdaa baqdin gudtii gabagabadii barnaamijkan danka hadal baynu maraynaa professor su'aasha talada ugu dambaysa haddaan adiga ku siiyo soo jeedintaada maxaad waxaa soo problems ama dhibaato markaad eegto iyo isbedeladaas iyo waxa aan meel fadhiyin gudtii gabagabadii waxaad adigu ku soo gabagabayn lahayd tala ah ee aad ka dhiiban lahayd arrimahaas aqoon-yahan ahaan waa maxay horta talada ugu muhiimsan waxa weeyaan in dadka aqoonta u leh wax walba la weydiiyo dadkan maamulka u dhiibanay maaha wax walba way yaqaanaan maaha waxa weeye laakiin inay isticmaalaan dadka aqoonta leh waa resource ugu muhiimsan waddankan leeyahay laga faa'iideysto weliba anigu taan ka talinayaa waxa taan doonayaan halkan talada ka dhibta waxa weeyaan nin kaliya hadhigeysa nin kaliya la dhigeysta maaha mid baa odhanaya ana aqoon leh meesha gelaya dabadna wuxuu doonaya inaan aqoonyahan kale wax la weydiin ya waan arkay rag caynkaasoo runtii diidan bayna aqoonyahan kale wax la weydiin kaligiina wax walba ma garanayo marka waxa loo baahan yahay in la weydiiyo aqoonyahan fara badan wax la weydiiyo dabadna ta ugu fiican la qaato in laga hadlayo dad badan aqoon leh laakiin dad hebel oo aqoon labaan haystaa hebel kuma anfacayo hebel waxa laga yaabaa inuu shahaadada iska sitoon aqoon fiican ba aan lahayn ba laga yaabaa ama waxa laga yaabaa inuu yahay qof iska caqli gaabo marka hore u dhashay oo shahaadada lafteedu waxay u baahan tahay caqliga gashay u baahan tahay riwaayadii oo dhigaysatay hebel waa PhD dadna uu ka kalanayo riwaayadda wuxuu oranayaa ma ka qalbi caruurka waa PhD waxay u baahan tahay qof ay gashay buu oranayaa moogta marka dad baa iska jira PhD iyo wax ka saadaystaan shahaado ka saadaystaan maangaaba iska jiraba oo maskaxdoodu iska kooban tahay oo aan abwaan baa loo qofka abwaanka ee marka hore abwaannimada Ilaahay u dhaliyay garaadka ayaa shahaado u tartaa laakiin qofka iska marka hore maangaabka iska caqli gaabka ah wixiisu iska kooban yihiin marka hore waxba ku shahaado hadduu qaato waxba ka jiraan shahaadooyinkiisa marka hal uriyo talooyinkaad leedahay dee markaa waa in dadka la isu wada yeedhaan marka aqoonyahanka dhan loo yeedho dee kaagwaanka soo baxaya laakiin dad mid amuum oo ku yidhaahda shahaadada ugu sarsaasita aad u yeedhato
hayso ilaa weligaa bal waxaad ka faa'iidad aragne aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaal intaa waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii danka hadal oo toddobaadkan ama wiigan aanu ku wareysanaynay professor عبد علي جامع oo ah aqoonyahan wax ka dhiga ama cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Hargeysa professor aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtiga qaaligeena siisay asubniisa aad u mahadsantiin adiga iyo farsamayaqaanada iyo dhamaantiin thank you sir waanigu Cabditax Ismaaciil Musala farsamadii Maxamuud Saleebaan iyo Yaasir waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo weydiiniya male su'aal inaad tahay waaya arag iskaygani waa kulo taniyo waagan ku rabay maxaa kugu weehday oo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal farwaaweyn kugu dhigay weydiiniya male su'aal inaad tahay waaya arag iskaygani waa kulo taniyo waagan ku rabay kugu weehday oo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal farwaaweyn kugu dhigay ma jiro wadka ruux hortii waa yeelka noqdaa xubbiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay قفوينني متي